الحديث الثاني: مراتب الدين الإسلامي وأشراط الساعة. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. بسم الله. waxaanu iska bilaabanaynaa xadiiskeenii labaad kitaabka 40 maraatib الdiin الإسlaamiي وأشراط الساعة. can cumara, cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhu, allaha ka raali noqdee, aydan qaala, sidoo kale inuu yidhi: baynamaa goor naxnu annagu cinda rasuulillaahi, rasuulka ilaahay aanu la joognay, sala allahu calayhi wasalam, alla nabadgelyo naxariisi korkiisa ha ahaato, daata yowm, maalin, iddalaca calaynaa, waxaa nagu soo baxay rajulun nin, shadiidulbayaadi siyaabi, ay daran tahay caddaanta dharkiisu, shadiidu sawaadi shacri, timihiisu aada madow yihiin, laa yuraa calayhi atharu safari, aanay ka muuqan oo lagu arag raad safar, walaa yacrifu mina axad, mid kaaya naga midana aanu garanayn. inta haddaynu iftiimino, waa asxaabtii radia allahu canhumaa oo nabigoodii sala allahu calayhi wasalam uu dhex fadhiyo. nin baa ku soo baxay. goobtu waa madiina oo dadka ku noolba iska kooban yihiin. ninka reer madiini ma garanayaan, maadaama reer madiini garan waayeen. waa nin safara,
timihiisu waa madow, kama muuqdaan raad safar, boodh ma laha, cagihiisu waa dhalaalayaan, dhas iyo boodh ma laha, raad socod kama muuqdo, daal kama muuqdo, dharkiisu waa cadcad yihiin, haddana boodh kama muuqdo. Waxaa muuqata ninkan asxaabtii nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam inaanu safarka soo gelin oo dharkiisa sheegaya, lamana garanayo oo asxaabtii garan waayey. ninkii soo socay xataa ilaa iyo jalasa uu fadhiistay ila nebiyi nebiga la fadhiistay sala allahu calayhi wasalam, nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Fa asnada rukbatayhi ilaa rukbatayhi, markaas ayuu ku tiiriyey labadiisii jilbood, wadaca kafayhi calaa fakhidayhi, wuxuuna dhigay labadiisii calaacalood dusha labadiisii bowdo. Wa qaala wuxuu yidhi, yaa Muxamed, Muxamedow, akhbirnii iiga waran can ilislaami, islaamku muxuu yahay? Faqaala wuxuu yidhi rasuulullaahi, rasuulka ilaahay, alislaamu islaamku waxa weeye an tashhada inaad qirto an laa ilaaha ila allah, in aan alla mooye alla kala jirin, wa anna muxamadan muxamedna rasuulullaahi, rasuulka ilaahay xaqa inuu yahay, wa tuqiimu salaata, salaada aad toosiso oo ogto, salaada aad tukata maaha. Salaada tukashadeedu waxay noqon kartaa adigoo soo weysayso una forforso oo khuduuc iyo waxa weeye salaad sahwi ha ku khuduuc lahaanin, oo salaad sahwi waxa weeye iyo salaadii oo aadan siday ahayd u tukan bay noqon kartaa haddaad salaada tukatid. Laakiin tuqiima waa inaad salaada toosisid oo xaqeeda aad siisid oo qalbiga soo xaadirsid oo jawaarixda sida ay ahayd aad uga tukato. Wa tu'ti sakaata, sakadana aad siisid ciddii xaqa u lahayd, ibnu sabiilkii, musaafirkii, miskiinkii, faqiirkii. Wa tusuumu ramadaana, bisha soonna aad soonto. Wa tuxaja albeyta, xajka guriga allana aad booqatid, in istadacta ilayhi sabiila, haddaad awooddo oo jid u heshid. Jid u hesho maxaa looga jeedaa? Waa inaad waddo ammaan haysato oo nabadgelyo ku tegayso, nabadgelyo ku soo noqonayso. Waa inaad dhaqaale kugu filan oo ku geynayo ku soo celinaya haysato. Waa inaad qoyska dhaqaale ku filan ood uga tagto haysato, oo haddii eebbe idmayo intaad maqan tahay reerku wixii ay sii quudan lahayn aad uga tagi kartid. Intaa haddii aadan oofin, xaj kuguma waajibin, manaad gaadhin heer la xajo. Qaala wuxuu yidhi, sadaqta, run baad sheegtay. Facajibnaa, waan la yaabnay, lahu yas'aluhu wa yasdiqu, wuuna weydiin wuuna u rumayn. U rumeeyaaba waxay fahmeen asxaabtu ninka nebiga su-aalaha weydiinaya, su-aalaha uu nebiga weydiinayo aqoon darro inaanay ka ahayn, jawaabteedii isaguba uu sii hayo. Qaala wuxuu yidhi, fa akhbirnii can iliimaan, iimaanka iga waran. Qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam, iimaanku waxa weeye an tu'mina billaahi, inaad qirtid oo aamintid ilaahay jiritaankiisa, wa malaa'ikatii, malaa'igta jiritaankooda, wa kutubihi, kutubtii alla soo dejiyey, hadday subuur noqoto, hadday towraad noqoto, hadday injiil noqoto, hadday kitaabka qur-aanka noqoto, wa rasuulihi, nebiyadiisii oo dhan, walyowmi alaakhiri, maalinta qiyaame, wa tu'mina biqadri khayri wa shari, qadarkana aad aamintid oo sidiisa u qaadatid, shar iyo khayr kuu yahayba. Qaala wuxuu yidhi, sadaqta, run baa sheegtay. Qaala wuxuu yidhi, fa akhbirnii can ilixsaan, ixsaanka iyo samafalka iga waran. Qaala wuxuu yidhi, an tacbuda allaha, waa inaad ilaahay u caabudo, kaannaka taraahu, sidii aad arkayso. Fa in lam takun taraahu, haddii aadan arkaynin, fa innahu yaraaka, eebba isagaa ku arka. Qaala wuxuu yidhi, fa akhbirnii can isaaca, saacadda qiyaama iga waran. Qaala wuxuu yidhi, mal mas'uulu canhaa biaclama min asaa'ili, kala weydiiyey kama ogaal badna oo kama oga ka weydiinaya. Qaala wuxuu yidhi, fa akhbirnii can amaaraatihaa, haddaba calaamadaheeda iga waran. Qaala wuxuu yidhi, an talida, waa inay dhasho amatu, addoontu, rabbatahaa, sayidkeeda. Inta maxaa lagu fasiraa?
dhowr tafsiir baa lasoo arooriyaa. Tusaale, muslim iyo gaal intii loo diriro oo ay muslimiintu adkaadaan ayaa dumarka gaalada mujaahidiinta muslimiinta tusaalehaan qof ka midii uu adoonsaday, uur bay u yeelatay, wuu dhintay, gabadh bay u dhashay. Gabadhii ay dhashay addoontii gaaleed ee ninkan islaamka ahi guursaday, inantan ay dhashay waa sayidkeedii, waayo ninka caruurtiisaa dhaxla. Ta labaad, waa tuu jirta waqtigan aakhiru zamanka ubadkii caasiyoobay, hooyadii aan ixtiraamayn, aan xurmaynayn, sidii ay addoon tahay u quursanaya oo ula dhaqmaya. Wa an taraa inaad aragto alxufaata alcuraata alcaalaata racaa ashaa'i, inaad aragto dadkii kabalahaan socon jiray, dhar la'aa, caydh ahaa, ee xoolo dhaqatada ahaa, yatadaawaluuna ku tartamaya fil bunyaani dhismayaasha. Waa calaamadaha qiyaamaha. Thumma indalaqa, kadibna wuu jeesto wuu tegay. Falabistu maliyan, muddaan sugnaa. Thumma dabadeetana qaala wuxuu igu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam, yaa cumaru cumarow, atadarii miyaad garanaysaa man isaa'ili kan su-aalahay weydiinayay? Qultu waxaan idhi, allahu warasuuluhu aclam, ilaahay rasuulkiisaa garanaya oo cilmi leh. Qaala wuxuu yidhi, fa innahu jibriilu, waa jibriil, ataakum wuxuu idinku yimid hadda asxaab tihiin, yucallamukum diinukum, si uu diintiina idii baro. Rawaahu muslim. Xadiiskan muslim baa wariyey. Haddaynu fawaa'idda xadiiska laga qaadanayo iyo axkaamta laga qaadanayo aanu tagno, waxaa laga qaadanayaa xadiiskani diintii oo dhan buu soo koobay. Islaam waa camal muuqda, sako, salaad, soon, xaj. Iimaan oo rumayn qalbiya. Ixsaan oo heerka ugu sarreysa cibaadada ah. Sidaa darteed culimmadu waxay yidhaahdaan qofkii fahma xadiiskan wuxuu fahmay aasaaska diinta. Islaamku waa akhlaaqda ugu sarreysa. Inaad Alle u caabudo adigoo ka warqaba inuu ku arkayo, waxay toosisaa qalbiga, niyadda iyo dabeecadda. Habka su'aal weydiinta. Jibriil calayhi salaam wuxuu wax ku baray asxaabta su'aal iyo jawaab. Waxay muujinaysaa in sidoo kale su'aal culimada la weydiin karo. Fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. Waxaan kaloo ka qaadanaynaa qiyaamaha inaan nebina garanayn, malaa'igna garanayn, ay tahay qeyb xagga Alle ah, alla unuu garanayo subxaanahu watacaala. Waxaan kaloo ka qaadanaynaa astaamaha maalinta qiyaame. Dadkii saboolka ahaa ee cagaha caddaa ee adhiga raaci jiray ee qaaqaawanaa oo dhismayaal ku tartamaya in la arki doono. Isbeddel bulsho iyo akhlaaqeed in la arki doono. Waxaan kaloo ka qaadanaynaa in habab kala duwan dadka wax lagu bari karo. Jibriil calayhi salaam wuxuu isku soo ekeysiiyey qof bilaadan ah si uu asxaabta cashar u baro. Asxaabi la dhaho 6 kalib ayuu isku soo ekeysiin jiray sida sugan inta badan. Waxaan kaloo ka qaadanaynaa qofku wixii aanu garanayn inuu yidhaahdo Alle iyo rasuulkiisiibaa og. Waa akhlaaq cilmiyeed. Waxay kaloo ku tusaysaa qofku waxaanu garanayn inaanu isku qaadin. Diintu waa camal iyo cilmi isku jira. Rumayn keliya kuma filna, camal keligii kuma filna. Labaduba waa daruuri. Ilaahay waa mahad iska leh. Intaasaynu kusoo gabagabeynaynaa xadiiskeenii labaad. Wallaahu aclam.